maalin wanaagsan subax wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba wararkeena subaxnimo inaad ka daawataan channelkeena YouTube-ka sirta wararka Dabaasha TV ayaad naga daawanaysaan Maarso waxay ku beegan tahay 6/2023 wararkeena saaxiibayaal saakay oo isniina qodobada aad ku daawan doontaan waxa qaybka dagaal culus oo saakay mar kale dib kaga qarxay magaalada Laascaanood iyo madaafiic culus oo taangiyada ah oo laga maqlayo dhufeysida aagaga dagaalka xogii ugu dambeeyay xaaladda Laascaanood dagaalka saaka halkaas ka soconaya duqeymo xoog leh oo mar kale ciidanka Soomaaliland ay bilaabeen inay ku garaacaan magaalada Laascaanood faahfaahin iyo xogo ku saabsan xaalka Laascaanood ayaan kula wadaagi doonaa isla warbixinadeena kale waxa qaybka Soomaaliland ayaa saaka ilaa xalay soo daabushay ciidamadeedii ku sugan deegaanka Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag ayadoo u soo daabushay aaga gobolka Sool sidoo kalena beelo hor leh oo Soomaaliland ayaa ku soo biiray dagaalka kuwaas oo hadda habeelid ahaan dagaalka kaga qayb qaadanaya xogii ugu dambeeyay ciidamada horta leh ee Soomaaliland ay ku soo daabushay Laascaanood iyo waliba beelaha ku soo biiray dagaalkaas magacyadooda ayaan ku soo gudbin doonaa waxa kale oo qaybka magacyada 19 qof oo hal mar iskaga baxay xisbiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame haddaba muxuu noqon karaa mustaqbalka Cabdiraxmaan Cabshakuur maadaama sagaal xubnood oo xisbiga udub dhaxaad oo hayeen hal mar ay iscazileen maxay salka ku haysaa siyaasadda ka bixida xisbigaasi faahfaahin iyo macluumaad cusub oo arintan ku saabsan ay ku soo gudbin doonaa maxaa laga ogaaday kulankii dhaxmaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba madaxweynaha dalkaasi Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo xalay Dooxa ku kulmay haddaba kulankaas iyo waxyaabaha ka soo baxay iyo waxyaabaha laga wada jiray faahfaahintooda ay ku soo gudbin doonaa iyo guddi uu ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ayaa lagu eedeeyay dagaalka Laascaanood inay hurinayaan Farmaajo ayaa la sheegay in dhaqaale xoog loo ku bixinayo dagaalkaas inuu sii socdo Soomaaliland laga saaro gobolka Sool ee deentana durba soo baxday doorka Farmaajo ku leeyahay dagaalka Laascaanood ayaa si guud u sharaxi doonaa dhammaan qodobadan iyo kuwa kale aan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal wararkeena saakay qaybka noqon daawadayaasheena sida maalinlaha ugu xiran channeladiina YouTube-ka sirta wararka Dabaasha TV soo dhawaada saaxiibayaal subax wanaagsan mar kale anigu Dabaasha ayaa saakaydii waramaya aan ku bilaabo Laascaanood كوبي subaxnimo ee saakida hore magaalada Laascaanood markale waxa ka bilowday dareenka hubka culus ee madaafiicda ah iyo waliba sidoo kale rasaas xoog leh dagaalka ayaa ka soconaya galbeedka magaalada dadka deegaanka ayaa inoo sheegaya inay maqlayaan dareenka hubka culus ee taangiyada ka dhaca tani oo u muuqata in Soomaaliland markale duulaan culus ay soo qaaday inkastoo la xaqiijin karin in dagaalka dhanka Soomaaliland uu ka yimid iyo waliba haddii uu ka yimid dhanka ciidamada deegaanka ACC laakiin haddana dadka ku sugan Laascaanood ayaa saakiinoo in dagaal xoog loo ka soconaya galbeedka magaalada waxay dadku sheegayaan in dhawaqa rasaas culus madaafiicda nooca taangiyada ah ay maqlayaan oo ku soo dhacaya guud ahaan magaalada Laascaanood duqeynta ayaa mid xoogan waxaana dagaalku bilowday 12 subaxnimo ilaa iyo hadda saacadu ay sii marayso ilaa iyo 9:00 subaxnimo iyo dagaalka ka sii socda faahfaahin badan laga heli karo dagaalka bilowday dhinacyada ayaa hadda hubkooda xoogan adeegsanaya waxaa soo xusud mudan 4 maalmood ee magaalada xasilooneed in dhinacyada ay soo gaareen gurmadyo xoog leh dagaalka Laascaanood oo la qabaa'ileeyay oo beelaha hor leh ku soo biireen beelaha ayaa hubka qaatay oo dhinacyada ka kala yimid sida jabhadda ACC waxa ay heshay gurmadkii ugu xooganaa oo beelaha Puntland ka yimid gaar ahaan magaalooyinka Qardho Garowe Boosaaso Gaalkacyo oo dhammaanba lagu soo gurmaday ayna gurmad ka heleen iyo waliba sidoo kale gobolka Sanaag qaybo ka mid ah Soomaaliland qodida ayaa ina hadda bilowday dhaqdhaqaaq xooglan iyo waliba waa dhaqdhaqaaq xoogan ayaa 3 maalin socday saaka Laascaanood waxa laga soo sheegay madaafiic culus oo la maqlayay dareenka rasaas xoogan dhinaca galbeedka iyo dagaalka ka soconaya faahfaahin badan laga heli karo qasaaraha dhinaca kale haddii eegno Soomaaliland ayaa wada idina soo daabulida askar horle Soomaaliland ayaa la sheegay in xalay ilaa saakidii horeba ay ciidamada ugu badnaa ka soo daabushay aaga lagu magacaabo Ceel Afweyn oo gobolka Sanaag halkaas laga soo qaaday askar badan oo Soomaaliland ay ka joogteen waxaana la sheegay in sidoo kale beelaha Soomaaliland deegaan qaybo ka mid ah magaalooyinka Burco iyo waliba sidoo kale Hargeysa iyo magaalooyinka kale ugu waaweynba beelaha deegaan ay bilaabeen in hab beelad ahaan dagaalka ay ugu soo biiraan Laascaanood
waxay u muuqataa dagaalkeedu in hadda uu dib u sii bilowday marka la eego gurmadida dhinacyada soo gaaraya waxaase dhinaca kale muuqata inaysan shaqayn ilaa hadda qayradhaanta baaqyada caalamiga ay ka yimideen wadamada reer galbeedka oo ugu horeyso Mareykanka iyo dhexdhexaadintii dowladda Itoobiya ayaa hadda u muuqata in meesha ka bixi karto war ayaana sheegaya dagaalkan inuu noqon doono mid xoogan maadaama Somaliland ay rabto inay gacanta ku haysto magaalada Laascaanood oo ay sii maamusho halka ciidamada deegaanka ICC oo ay rabaan inay xajistaan awood ahaan ay sii xajistaan magaaladooda Somaliland qadiideeda gooni goosadka dhaawac ayaa ku iman kara haddii ay lumiso gobolka Sool sida ay qabaan khubaro badan dhinaca kale guddiga ku jiro madaxweynihii hore ee Soomaaliya Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa inay ku lug leeyihiin dagaalka Laascaanood ka soconaya oo dhaqaalo farsamo iyo in sidoo kale dagaalka ay wadaan hadda ay lagu eedeynayo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucud Injineer Faysal Cali Waraabe oo shir jiraad ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa saacad kaga hadlay xiisada dagaal ee wali ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Faysal Cali Waraabe wuxuu shaaca ka qaaday in hurinta dagaalka ay ka dambayso gacmo saddexaad asagoo ku eedeeyay guddiga hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo haatan ku sugan magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar in abaabul uu leeyahay guddi waxaa jira group WhatsApp ah oo la sameeyay oo gudoomiyuhu ka yahay Farmaajo dhaqaale ayaa lagu soo aruurinayaa dagaalka ayaana lagu horinayaa ayuu yiri gudoomiyaha ayaa ku dooday in Farmaajo uu doonayo in la burburiyo Somaliland isla markaana asaga uu rabo in Somaliland ay la mid noqoto maamulada kale ee Soomaaliya ka jira wuxuuna rabaa in Laascaanood iyo waliba gobolada kale in dagaal uu ka horiyo sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeedka ugu weyn Somaliland uu rabo ay tahay in laga saaro halkaasi ama qariirada dhanba in laga saaro oo la tirtiro Somaliland tana ma suurtageli karto ayuu yiri 30 sano iyo Somaliland ay tahay dal madax bannaan waxa kale oo intaas uu ku daray in guddigu ku jiro Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke Cabdiweli Gaas oo ayna geed fadhi ay u yihiin siyaasiyiin ku jira Faarax Macalin oo magaalada Nairobi caasimadda Kenya fadhiya ayuu Faysal Cali Waraabe sheegay in qudhooda ay door weyn ku leeyihiin dagaalka Laascaanood oo ay taageerayaan oo ay ku bixinayaan dhaqaale xoog leh waxa jira lacago ay isku qoreen Cumar Cabdirashiid Cabdiweli Gaas Faarax Macalin Farmaajo iyo xubno siyaasiyiin ah oo ku jira wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo dhamaantood kala fadhiya magaalooyinka Nairobi iyo Dooxa dhaqaale ay isku qoreen dhaqaalahaas oo loogu talagalay inay kaga qayb qaataan dagaalka waana arrin kale oo ah aad ugu weyn ee Faysal uu soo jeediyay xubnahan dhinaca kale wuxuu taageeray garab istaagna u muujiyay ciidamada Somaliland asagoo sheegay in ciidamada Somaliland ay waajib muqaddas ay tahay in dagaalka ay galaan oo ay difaacaan qarannimada Soomaaliya waa qarannimada Somaliland Faysal Cali Waraabe wuxuu sheegay ma jirto meel looga haro dagaalkan ma jirto cid dhexaad ka noqon karta qof walba askarta Somaliland waa inay difaacaan dhulkooda iyo dalkooda ayuu yiri Faysal Cali Waraabe ayaa sidoo kale fariin culus u diray guud ahaan reer Somaliland wuxuuna ugu baaqay inay garab istaag u muujiyaan ciidanka dagaalka laga qayb qaato oo la difaaco Laascaanood haddii aan lumino ogaada Hargeysa way ku soo xigtaa ayuu yiri hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo xaaladda laga dareemayo saakay dagaal culus markale dib kaga qarxay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxaa soo muuqata mucaaradka Somaliland in badi hadda ay nafta u uriyeen Somaliland oo madaxweyne Muuse Biixi ay ku raaceen dagaalka halkaas ka soconaya maxaa looga hadlay kulankii Dooxa ay ku dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba hogaamiyaha saaxiibada dhow yihiin ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geele labadan ayaa ku kulmay magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo duceedin la qaatay madaxuu ku jiro madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo ay ka wada qayb galayeen madasha shanaad ee qaramada midoobay ee dalalka soo koraya oo ka qabsamay magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar kulankan waxa ay labada madaxweyne ay ka wada hadleen mideynta mowqifka labada dal ee Djibouti iyo Soomaaliya saaxiibtinimadooda si loo xaqiijiyo danaha wadajirka labada dawladood ee Djibouti iyo Soomaaliya waliba dhinaca militariga taageerada xooggan ee Djibouti ay siinayso Soomaaliya labada madaxweyne ayaa sidoo kale kulankooda ku lafaguray sidii arrinta Soomaaliya loo xoojin lahaa iyadoo mudnaanta la siinayo horumarinta iyo xasiloonida madaxweyne Xasan Sheekh ayaana ka qayb galay furitaanka shirweynihii shanaad ee qaramada midoobay kaasoo looga hadlayay caqabadaha haysta
dalalka soo koraya sidii loo caawin lahaa iyo sidoo kale sidii kaalmo loo siin lahaa. amiirka qatar Sheikh Tamiim bin Ahmed ayaa sheegay in dalalka soo koraya Soomaaliya ku jirto loo baahan yahay garab istaag iyo taageero. labada mas'uul ayaa kulankooda ka wada hadlay xiriirka labada wadan, danaha wadajirka ay ku aadan xasiloonida horumarka gobolka sida lagu xaqiijiyay qoraalkii Villa Soomaaliya soo saartay ee la xiriira iskaashiga dalalka qatar iyo waliba Soomaaliya. sidoo kale xasan sheekh maxamuud iyo waliba amiirka qatar ayaa kulan qaas wada qaatay isla markaana ka wada hadlay mashruuca horumarineed ee dowladda qatar ay ka fulinayso Soomaaliya, taageerada qatar ay siinayso dowladda Soomaaliya. madaxweynaha ayaa kulamo duceeyay kala la qaatay madaxda kale iyo xubnaha qaramada midoobay oo dhammaanba kala hadlay laba qodob: taageero bini'aadanimo iyo taageero militari dowladdiisa maadaama dagaal ay kula jirto. amiirka dalkaasi qatar Sheikh Tamiim bin Ahmed ayaa dhankiisa madaxweynaha iyo wafdigiisa uu kaga mahadceliyay ka qaybgalka madasha qaramada midoobay ee dalalka soo koraya, wuxuuna xusay in sidii dowladda Soomaaliya kaga go'an tahay garab istaag weyn oo Soomaaliya la caawiyo. amiirka qatar wuxuu sheegay in mar walba ay ka go'an tahay in Soomaaliya garab istaagaan oo ay caawiyaan ka dowlad ahaanna ay mar walba Soomaaliya ay garab istaagayaan. ugu dambeyn 9 siyaasiyiin oo waaweyn ayaa iskaga baxay xisbiga Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame. Cabdiraxmaan ayaa hadda u muuqda in xisbigiisii wadajir asagoo inuu ku soo haray oo dadkii ugu waaweynaa uguna saameynta badnaa xisbigaasi in mar qurahaya hal mar ay ka wada bixin. bayaan si wadajir ay soo saareen 19 xubnood oo ka mid ah xisbiga wadajir oo hogaamiye Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame ayaa waxay ku cadeeyeen in dhammaantood bay iskaga baxeen xisbigan. liiskan waxaa ka soo muuqday siyaasiyiin miisaan ku leh 6 sano ee la soo dhaafay xisbiga wadajir, saameyn weyn ku lahaa xisbigaasi oo udub dhaxaad u ahaa xubnihii aasaasay. xubnaha iscasilay ma sheegin sababta ay ku go'aansadeen ama isku casileen, balse waxay ku gaabsadeen kaliya inay jiraan arrimo u gaar ah oo ku qasabtay in ay go'aan ka qaataan. bayaankan ay soo saareen xubnaha iskaga baxay xisbiga waxa lagu baahiyay bogga rasmiga Facebook ee xisbiga wadajir. qoraalkan ayaa ugu horeyn lagu yiri xisbiga wadajir wuxuu u mahadcelinayaa saaxiibada iyo waliba kuwii muddada dheer ee xisbigan ka mid ahaa. dhammaan xubnaha xisbiga ee magacyadooda kor ku xusan ee xisbigan ka shaqeynayay tan iyo bishii Juun sanadkii 2016 ilaa hadda waxay garwaaqsadeen in hadda kadib aysan ka sii mid ahaan xisbigan oo iskaga baxaan. xubnaha iscasilay waxa liiskan ka soo muuqday ilaa 12 xubnood, waxayna waa 9 xubnood waxayna sheegeen in ayagoo magacyadooda hoos ku xariiqay in sabab ayaga u gaar ah oo kaliya ay isku casileen, mana faahfaahin sababta keentay iscasilaadooda. ugu dambeyn waxay u mahadceliyeen dhammaanba dhinacyadii xisbigan, taageerayaasha xisbiga, waxayna sheegeen in duruufo adag laga soo shaqeeyay, duruufo adag la soo maray, hadda say iskaga baxeen xisbigan. ma faahfaahin cilada jirta sababta keentay in 9 xubnood hal mar xisbiga wadajir ay iskaga baxaan. xisbiga wadajir waxaa gudoomiyay waa Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame. Cabdiraxmaan kama hadal ilaa hadda sababta keentay 9 xubnood oo saaxiibadiisa ah oo waliba udub dhaxaad u ahaa xisbiga wadajir in mar qura xisbigaas iskaga casilaan oo iskaga baxaan lama hubo. laakiin ila wareeda ayaa sheegaya in Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame uu rabay inuu soo saaro statement ama qoraal oo kaga hadlayo mowqifka xisbiga wadajir ahaan ah uu rabay inuu soo saaro kaga hadlayo qorshaha hadda socda ee muddo kororsiga ay ku sameeyeen hay'adaha dowladda. Cabdiraxmaan Cabshakuur ayaa diidmo xoog leh ka muujinaya in muddo kororsi ay sameeyeen hay'adaha dowladda Soomaaliya oo diidanaha. hase yeeshee xubnaha hadda iscasilay Cabdiraxmaan ayaa la sheegay inay ku kala aragti duwanaadeen xisbiga wadajir mowqifka iyo go'aanka iyo habka loo dhigayo qoraalka in lagu soo horjeesto muddo kororsiga socda ee baarlamaanka iyo madaxweynaha oo 5 sano hadda xilhintooda laga dhigayo oo Cabdiraxmaan Cabshakuur diidmo xoog leh ka muujiyay. laakiin xubnaha iscasilay qaarkood ayaa ahaa xubno hadda dowladda ku jira oo xilal ka haya, waana asbaab kale oo loo aaneyn karo. waagaag daawadayaal wararkan ayaa ugu waaweyn. wararkan wixii kale oo ku soo kordhaa wararkeena kale ee galabnimo ayaan ku faahfaahin doona hadduu Ilaahay raali ka noqdo. nabadgelyo.